السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومحمد ربي أرتوك صار لها مقالة لندن ويندم وحابتي إن بوقت الصومالي أولو قرو قار وحيو قرن أفك الصومالي قار وحيو قرن أفك إنجليزكا هذا ما عنده وحي يسورق شيء إن وريس قار اللي يستوى عبد الرحمن محمد عبد الدون أكمل آخر عيش الصوماليات بوغا قرح عبد الرحمن سودو وحال الشيء إن صومالي أكو يرتاي إن وآخرسكا محاك جرى انتاس بسم الله الرحمن الرحيم محمد روبرت aad u mahadsantahay waa dhawahay waa runtaayo 20 sano ugu dambeysay aan iraahdo sidii farta Soomaaliga loo qorayba dad badan waxay ku dhiiradeen inay af Soomaaliga wax ku qoraan iyadoo marka horeeto inta yar wax qortaa ay ku qori jirtay afafka Ingiriiska, Faransiiska, Talyaaniga, Carabiga qofba afku yaqaan way soo socotay ilaa la soo gaaro marka farta Soomaaliga la qoro oo la hirgeliyay oo bulshooyinka Soomaaliyeed ay aad u gaartay inta wixii ka horreeyay bulshada Soomaaliyeed waxa loogu yeeri jiray bulsho oraaheed oo ah in afka ay wax iskaga tabiyaan laakiin aysan ku wanaagsaneyn wax akhriska arrintan muddo dheer soo socotay ayadoo ay saas tahay ayaa haddana dagaaladii la galay farta Soomaaliga oo qoran wax ka yar 18 sano ayaa la galay ummadii dagaaladii mashquuliyay haddana mar kale kacdoona soo kacay oo dadkii inay wax akhriyaan dib bay u uratay 20 sano ugu dambeysay waxa ugu badnaato oo ay aad loo dardargeliyay oo ay abuurmeen naadiyo akhrisyo ka furmay geyga Soomaalida oo yadan dhowr magaalo ayaa dhalinyaro is abaabushay waxay ka sameeyeen naadiyo oo ay marba buug soo qaataan ay ku gorfeeyaan taana waxay dhiirigelisay xataa in dhalinyarada ay aad u soo gasho dhanka wax akhriska wax qoritaanka ay yiraahdo qoraay badan oo hore wax u qori jiray ayaa sii dhiiraday kuwa aan hore wax u qorin way ku soo biireen marka waxa la dhihi karaa bulshadii kacdoonkaas soo galay oo dhanka akhris qoraalka runtii aad u taabaqaaday oo waa lagu guuleystay ayaa la dhihi karaa waxaa jiray iyadoo ay sidaa tahay ayaa markii uu yimid COVID-ka 2000 waxaan u maleynayaa bishii February sanadkii 2000 in ay ahayd markuu COVID-ka aad u dilaacay ayay haddana mar kale hoos u dhacday waxaana keenay akhris la'aantaas iyadii goobihii ay dadka bulshada isku imaan jireen xayiraada ay kala galeen qaaradda Yurub iyo waqooyiga America iyo Soomaalida ku noolna oo maktabadaha aad ugu xirnayd wixii saameeyay bulshooyinka kale oo ah maktabadihii in la xiray hadda dalkan Ingiriiska aan joogno magaaladiisa London oo haddana aan joogno oo Soomaalidu ay aad iyo aad u degan tahay ayaa waxaa ku ooli jiray maktabado dadweyne oo public libraries waxa la yiraahdo oo ay dawladaha hoose leeyihiin oo aad iyo aad u badnaa waxa laga yaabaa degmadiiba inay ilaa 9 maktabadood ay lahayd qaar baa 12 lahaa qaar baa 6 lahaa marka waa maro dhaqaalihii hoos u dhacay maktabadii waa la soo xiray waa marka labaado COVID-kii wuxuu keenay in maktabadii haddana la sii xiro oo ay meesha ka baxaan milihii ay bulshada isku imaan jirtay taana ay dhaliso in wax akhriska haddana mar kale uu hoos u dhaco qodob saddexaad jira oo akhriska yareeyay Soomaalida kaliya ma bulshooyinka adduunka dhan haysta waxaa kamid ah waxa loo yaqaano social media ama baraha bulshada kaasoo qofku waxa u fudud inuu TikTok galo oo ama X uu galo ama YouTube uu galo oo xog badnayd oo dheerayd oo iyadoo kooban uu helo
taa marka waxay yeeraysaa iyadana akhriskii xataa wargeysyada dalalka reer galbeedka ayaa waxay ka cabanayaan in magaranaysaa ay aada hoos ugu dhacday iibsashadii. waxaa keenana ay tahay baraha bulshada oo aada u qaatay mataqaanaa wararka ay soo tabin jireen. marka inuu hoos u dhaco dhowrkaas arrimo ayaa keenay hoos u dhicii dhaqaalaha, covidkii oo maktabadihii la xiray iyo barahii bulshada oo booskii buuxiyey. xaaladda hadda ee akhris qoraalka runtii waxaad moodaa laba kacleyn cusub inuu hadda galay uu kor usoo kacay. halkii ay ka jireen maktabadihii iyo meelihii laisku imaan jiray markii ay xirmeen waxaa dhashay iyadana whatsappka wuxuu keenay in uu whatsapp groups ku يعني تخصصي أخرسك وحي اللي حريرة أي عرتان هالكاس اللي سكو قد بيو بواكتا بواك هراء أما بوا هذا السؤال أما كوا حساب بدنبا ودليل ده يعد وحسيان سجوا PDF أما إلكترونيك هي اللي سكو قد بيا تا إلا ده إلا ده هاي وحاليا با بوجا قفك قري إنه سنسينين رخصة قفك ماشى صور دقيقة ama buugis in halkaas la soo dhigo. laakiin xoogaa kor wuxuu soo qaatay iyadana wax akhriska. waxaa la saadaalinayaa waqtiyada soo socda inay halka ka sii waan rajaynayaa runtii inay saas noqoto, inay ka sii kobcdo wax akhriska. runtii dhalinyarada hadda social media aad ugu mashquulsan yihiin, laakiin waa in la helaa qaabab kale oo loogu jiido wax akhriska. akhriska naftirkiisa buugta laftirkooda xaashiyii ay ku qornaayeen way kasii guurayaan, waa qaab electronic ay usii guurayaan. marka waa in lala qabsadaa oo dhankaas electronic naftirkiisa buug haddaad qorto oo aad qarashkii badnaa uu kaa geli jiray daabacadda laftirkeeda noocyo kaleeto loo weeciyo oo qaabka buugga loo way jiraan website badan oo laga iibsado isagoo electronic ah. marka dhankaas in loo wareego ayaan ku talin lahaa aniga laftirkay. dhanka xashida laga moodo guuri karo oo xiisaheeda iyo taariikhdeeda iyo kalgacalkeeda uu leeyahay, laakiin haddana dhanka kale markaad fiiriso wacyiga markaas la joogo waa in lala qabsadaa. kaas weeye midka hadda jira, kaas weeyna ka mustaqbalka soo socda. waa mahadsantahay maxamed rabiir. وريسين ليشي عبد الرحمن محمدون وانا انت وريسين وحقا انو محمد روبرتو وهان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.